waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guulaysanay arrimihii aan halkan u imid iyo dhammaan wadatashyadii na dhex maray anigii iyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor. arrimahaas oo si wanaagsan oo kal iyo laab ah noogu soo gabagaboobay halkan magaalada Muusamareeb. arrintaas oo ka dhalatay halkan ayaa waxaan rabaa inaan u sheego jawaabta ka soo bixi doonto inay farxad u noqon doonto dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka Galmudug. intaa markaan kaga baxo saad la socotiin Galmudug caqabado yaryar ayaa qabsaday isbuucyadii u dambeeyey taasoo ay keeneen kooxo ama group aan ka shaqayn nabadda. runtiina aad ayaan uga xumahay in Galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada dowladnimada iyo jiritaanka Galmudug. haddaan nahay dowladda federaalka waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo Galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii kana hor timaado midnimada iyo dowladnimada Galmudug inaan gacan bir ah ku qabanno. dowladda Soomaaliyeed dowladda federaalka ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda Soomaaliya. waa muhiim inuu caqliga shaqeeyo. waa muhiim inaan tashanno. 30 sano kadib ma yeelayno qof inuu qori qaato isku dayo inuu ummad hore u socoto hor istaago iskuna dayo inuu caqabad ku noqdo jiritaanka ummad Soomaaliyeed ee hore u socoto. ra'iisul wasaare Galmudug doorashada golaha aqalka ee golaha shacabka way galaysaa. waxaan rajaynayaa inaan ku bilowno haddii la yiraahdo. weliba waxaan rabaa inaan ka caddeeyo shantii kursi ugu horreysay waa caabaysan yihiin waa la soo daynayaa haddii la yiraahdo. guddiga doorashadana waxaan ka rabnaa berriyo inay iclaamiyaan ama way cilaansan yihiin odayaashii dhaqanka ee u qaraa. maalmaha soo socda oo aan ka badnaanayn ilaa iyo maxaan kuu sheegaa ra'iisul wasaare 3 biloodkaasoo kuma filla way soo baxaysaa 5 bilood soo baxaysa insha Allah. doorashadii waa bilaabatay golaha shacabka horena waa u bilaabatay muddo dhaafna way ahayd haddana waa ku dhawaaqnay. guddiguna way calaaminayaan ra'iisul wasaarahana waa lala qaybsanayaa kurbada iyo xanuunka ay ku hayso doorashada iyo mas'uuliyadda ka saaran. Galmudugna halkaasay ka taagan tahay. waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor oo sheegay kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka taasoo uu qabtay 3 maalmood gudahood inay ku soo dhammaystirmayaan hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waa ceeb waad ogtihiin Soomaali iyo ajnabiba maalin kasta waxay nagu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ajnabigaba aaway doorashadii halkee ku socotiin war maxaad u qaban la'diin. laakiin caawa farxaddaas Soomaaliya iyo adduunkaba waxaa u soo hoyay madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor. waxaan sidoo kale rabaa halkana kaga codsanayaa walaalahay 4 dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socdo waa hadday u nahayaan shacabka Soomaaliyeed. aniga laftirkayga qadyaan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay allow ka soo saar. marka insha Allah waan sugaynaa dhammaan dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed waxay ka sugayaan in doorashada la soo gabagabeeyo sida lagu heshiiyeyna intuusan dhammaanin sanadka cusub la soo dhammaystiro aqalka
hoose ama golaha shacabka hadduu alla subxaana wa tacaala idmo